إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان بإلهي. بعد أستاذ نبي داود يا نبي سليمان مركي أي حوله بيرتا قالي حكوميين وحي إلهي كنت المامي ففهمناها سليمان. نبي سليمان بانو فهم سيني نبي سليمان بان فهم سيني داود وحقرن ما يمياه ما يسان كان لوغا فهمين بإلهي وكلنا أتينا حكما وعلما. لما أنت دوحا نسيني بإلهي سبحانه وتعالى حكميه هي علمي با لبضوا بعد ما أنت دوي لهاي آيات كلا إلهي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. على كل نحن وسعنا وفي كل خير توين تلماميسو مؤمن كإيمان صحيح لغا لا طاعة سليمي كل بين خير كسوغي. لكن مركي تمادا مؤمنك إن كلاسيفيكيشن لو سميو إن لكلا صوعه إنه كقوي كخير بدن يحي كضعيف كأبو نبو تلمامي عليه الصلاة والسلام. قاعدة دا مركو نبو الشاقي أيوحينو تلمامي يا دردارنا نسينيا دردارن كان يوحى وشيغيا وحي قفك مؤمنك قوي كدغ لها ها قفك مؤمنك خوغ يليا وحو نبي يقول كو احرص على ما ينفعك وحد كد داشا او الى لسا وحك انفعيا نولش اينو جوغنو بني ادمك وقت اسكو ميدو هايستا وقت اسكو ميدا انت بدن dadku 60 jir 50 jir 70 jir meela waa soo wada gaadha laakiin midhaha yaraadka ee dunida kaga tagaan iyagoo isku waqti noola waa kala nooc sababta uu kala noociyna waa masaladatan amalka bini aadamku qabta waa saddex qaybood mid ah inuu yahay qayb ku anfacaysa qayb wax tarta aakhiriya dun manfacuun leh iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya duma dhibaato kuugu jirto iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madaro toona lahayn laba inaad ka tagtaa marka la raba midna qaadatid wuxuu nabigu leeyahay ihras ala ma yanfa'uk waxad ku dadaashaa waxa ku anfacaya waqtigaaga iyo maalintaada iyo xoogaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtaa wixii ku dhibaya ka tag waxaad kaloo ka tagtaa waxaan macnaha samaynaynin dadka in badan oo kamidi waxaabay dhib ku ah waqtigoodaba marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan waxay ku madadaashaan madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu waqtigiisa ku baabi'iyo xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo أنا أدونكنا منفع كل هين آخرنا منفع كل هين أدوننا وحكمة تريسو وحنو وضع آخرنا وحكمة تريسو قفنا يسوي لي بيجي باب وقت يسيكو بحي وحارانا عندنا هنكو بنانين وعقيدة هم بنانين أيكو بحي نبي عليه الصلاة والسلام مركو حين لي احرص على ما ينفعك على ما ينفعك كد دال وحق أنفعيه بتعبير أهل العصر ووحيد هذا كن منتجا أو كن إيجابيا قف وحصصار له قف واحتراءه قف وناق قبطان نقو نولش هذا مالنتي واحد قبانيسا وين تسويديسا ما منفع دون بكولي هي بس منفع آخر كولي هداد وحل لبدا كده حركي ويدو ووحي لقولي كتك هداد منفع دون كويدو أما منفع آخر كويدو واحتر ماله شاكدا قبضان الصومالي دو كشاكيسا واحتر ماله سياسة دي قبيل كي الريرها هي وحلقة شاكا يوردم واحتر ماله كبدا يا عيارا هي وحلا داودورم واحتر ماله وراركان هبينيا مالين بلدي جيسانيا لوضور انتو دا بدن واحتر ماله wax badan aan waxtar lahayn ma dadku waqtigiisa ku qaado nabiguna wuxuu tilmaamayaa min husni islaam al-mar'i tarkuhu ma la yaani qofka muslimka islaamnimadiisa wanaageeda waxa kamida
isagoo ka taga waxaan macno u samaynaynin tarkuhu maa laa yacnii waxaan isaga khusaynin waxaan ku khusaynin waxna ku taraynin maanta dhaa dad ka waranto laba gaaloo meel isku dilay kii la dilay adiga waxba ku tari mahaya warkooda iyo akhbaartooda waxba ku tari mayso akhbaarta siyaasiga dad ka sheekeeya inteeda ugu badan waxba ku tari mayso waxyaabahan ka sokeeya iyaguna cayaarahan iyo madadaadadan iyo whatsappkan iyo snapchatkan iyo waxa la wado dhami aktharuhum waxbaabay dhibaan aakhiriya adduunba inta aan aakhiriya adduun manfaca ku lahaynina aan wax dhibinina waa inaan adduun iyo aakhiratoona manfac ku lahayn marka wixii aan manfac ku jirin mid adduuniya mid aakhiro waa inaad ku xisaabtantaa inaad wakhtigaaga iyo xoolahaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga inaad gelinin sidaa awgeed buu nebigu wuxuuna leeyahay ixris calaa maa yanfacuk wixii ku anfacaya ku dadaal intaa kadib buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wastacin billaah ilaahayna kaalmayso ilaahay kaalmayso macnaheedu waa in qofka mu'minka ah wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakarayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro qofka mu'minka ee dhabta ahi quruur kuma dhaco iyo cujb isla weyni iyo anaa caqli badan iyo anaa karti badan iyo kaama rumaysana qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu mar kasta u baahan yahay mar kastaba inuu ilaahay u baahan yahay saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina baray mar kastoo inuu ilaahay sortaagna inaynu akhrino iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adaanu ku caabudaynaa keliga baanu kaa kaalmo dalbaynaa qofka muslimka ahi mar kasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga waa qof muujiya inuu yahay addoon daciif ah waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata ila billaah wuxuu rumaysan yahay waa kanzun ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu qays buu nebigu yidhi ma ku tusiyaa kanz min kunuuzi ljanna khasnadaad jannada ka mida makuu sheegaa faqultu balaa yaa rasuul allah haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xadiidka saxiixayn ku yaal nebigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata ila billah weeyaan laa xawl xeelad malihi iyo awoodtoona ilaa billaahi mooyaane ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna malihi qofka muslimka ah markaa waa qof baahidiisa ilaahay u bandhiga nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabal wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallaahi innii la uxibuk ilaahay baan ku dhaartay mucaada waan ku jeclahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu mucaadna wuu yidhi ilaahay rasuulkiisii warguna waa ku jeclay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku baraya ee salaad kasta